السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الرزاق أحمد halkaan naga daawanaysan waa Cabdirasaaq Axmed official kusoo dhawaada mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida shaashada aad ka soo aragteenba sida WhatsApp account-kaaga aad u arki lahayd qof message waxa uu ku soo diray oo ka daleedo kale haddii sawir uu ku soo diray oo ka daleeday haddii message uu ku soo diray oo ka daleeday iyo sida aad uga hortagi lahayd in qofkaas mar dambe wax uu ku soo diray oo ka daleedo sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan idinkula wadaago ka soo qaado kale qofka status-ka kale waxa uu soo dhigay inuu daleedo marka waxaan rabaa inaan idinka tuso steps-ka si aad uga hortagi lahayd status wax la soo dhigo la daleeday si lambar loo xirto kale WhatsApp number-ka marka qofku soo wacayo kale marka rabtidoo kale dadka qaar inay wicitaankooda aad ka xiratid iyo waxyaalahaas oo kale in halkan idinkugu soo bandhigo marka koowaad waxaan tagaynaa account-keena WhatsApp-ka ayaan tagaynaa waa kan account WhatsApp-ka ayaan ku dhufanaynaa kadib waxaan kasii tagaynaa qaybta settings-ka waxaa kasii tagi doonaa qaybta GB setting aniga WhatsApp-kan isticmaalayo waxaa la yiraahdaa WhatsApp GB setting-ka ayaan kasii tagaynaa GB setting-ka markaa kasii tagno waxaan kasii tagi doonaa qaybta privacy and security ayaan tagi doonaa privacy and security markaa tagno waxaad imaataa qaybta ay ku qoran tahay anti-delete messages kaas tagaysaa anti-delete messages markaa tagtid hadda saan waaye markaa isticmaalaysid maxaa la yiraahdaa GB WhatsApp-ka saan waaye anti-delete messages-ka markaa tagtid meeshaan ayaad tig saari doontaa meeshaan ayaad furi doontaa meesha markaad furtid auto delete messages-ka waa kan meesha hoos wuxuu kusoo qoray marka other people cannot delete messages for you qof message oo kusoo diray kama deleedi karo haddii meeshaan tig ay ku saaran tahay anti delete messages-kaas qof message kusoo diray kama deleedi karo sidoo kale waxaa jirto qaybta oo maxaa la yiraahdaa status-ka qaybta status-ka oo kale waa kan wuxuu ku leeyahay anti-delete status meeshaan ayadana way ku xiran tahay marka waxaa la rabaa markay ku xiran tahay in aad furatid si WhatsApp status qof oo soo dhigay oo daleeday aad u aragtid wax walba oo soo dhigo hadduu daleedo waa arkaysaa anti-delete message-kaas asina waxay status-ka wuxuu ka caawi doonaa qof waxa uu soo diray ama status oo soo dhigay in uu daleedo sidoo kale qofka markii uu wax uu soo diray uu daleedayo calaamadan saan noqonaysa calaamad saas oo kala blog ah ku fuuleyso si aad ku kala garato qofka message-ka oo soo diray WhatsApp-ka maxaa la yiraahdaa status-ka oo sawirka ama waxa uu soo saartay video uu daleeday videogaas meesha kore waxaa kusoo qormi doonta calaamada blog ah aad ku garan doonto in videogaas la daleeday balse adiga uusan xaggaaga ka daleedmin sidoo kale waxaa jirto qaybtan maxaa la yiraahdaa security-ga si WhatsApp qof gooni ah tusaale ahaan qof wax idinka dhexeeyo qof sir idinka dhexeyso markii aad rabtid si kaligiisa inaad maxaa la yiraahdaa aad password ku xiratid qaybtan security-ga tagaysaa WhatsApp log kadib security-ga geli doontaa pin ama password ama button kadib password-ka geli iyo ku dhihi doonaa saas oo kale tusaale ahaan markaan rabno qof inaan gooni WhatsApp-kiisa aan ku xiranno tusaale ahaan markii aan rabno inaan ku xiranno ciwaankan oo kale qaybta setting-ka tagaynaa setting-ka waxaan rabnaa aniga qofkan conversation-keeni iyo waxayni saan loo arkin qaybta setting-ka tagi doonaa setting-ka markaan tagno waxaan tagaynaa log conversation-ka yaa ku dhufanaysaa si aad qofkan button ama password mujeeda tusaale ahaan qofkan button ku xirtay
wuxuu ku dhahaa wax geli, tusaale ahaan calaamadda saxda saartay ku celiyuu leeyahay, calaamadda saxda ayaa ku celinaysaa. Okay, qofkan markii aan rabay inaa tusaale ahaan qof kale imaaday ciwaankeyga oo furan, qofkii wuxuu damcay inuu galo, wuxuu leeyahay qofkan password geli, passwordka saas u gashan doontaa. Okay, qaybta passwordka ayagana waa taasaa. Waxaa kaloo rabaa inaan idinka tuso ama aan idinla wadaago qofka ku soo wacayo. waxaa laga yaabaa qof aad rabin inuu ku soo waco si aad ugu xiran lahayd lambarkiisa. Waxaa rabtaa hal qof kaliya in aad ka xirato in uu ku soo waco. Tusaale ahaan waxaad tegaysaa qaybta who can call you markaad tagtid meeshaan wuxuu ku soo bandhigaya choice badan oo ku siinaya. Wuxuu ku leeyahay ma qof walba ku soo wici karo, ma qof dadka contactskaaga kaliya, ma contactskaaga markii laga reebo hebel ku soo wici karo, ma message lambar aad dalbatid oo waxaad leedahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel kaliya ayaa isoo wici karo, ma qof walbaad ka xiranaysaa. Inta qof walba inaad ka xirato, in aad dad gooni aad tiraahdo intaas qof ay isoo wici karto. Markaad inta qof ay isoo wici karto aad tirahdid muxuu ku soo saarayaa inta dalbo ku leeyahay dadka ku soo wici karo. Markaad tirahdid asxaabtii inuu isoo wici kartaa markii laga reebo hebel, dalbo ku leeyahay hebelka aan ku soo wici karin. sidoo kale my contacts kaliya waa inay ku soo wici karaan, iyo qof walba oo hadda isaga kaasoo darsala markaa iska save garaysto inuu ku soo waco. Ayadana sida looga hortago ama sida loo dalbado in dadka aad ka xiranaysid wicitaanka, meeshaan ayaad tegaysaa. Ayadana waxay tahay qayb kale oo aan rabay in aan halkan idinkula wadaago. waxaa kaloo jirto qaabka maxaa la yiraahdaa WhatsApp-ka loo saarto maxaa la yiraahdaa wallpaper-ka qaabka sawir loo saarto. Wallpaper-ka qaabka sawir loo saarto waxaad tegaysaa qaybta setting-ka si wallpaper-ka aad sawir u saarato. Setting-ka tagtay, markaa setting-ka ku dhufatay waxaad ka sii tagi doontaa background history, qaybta jadka ka sii tagi doontaa. Jadka maxaa ku qoran backup history iyo wallpaper-ka. Markuu ku soo baxo waxaad ka sii tagi doontaa wallpaper-ka ku dhufan doontaa. Kadib wuxuu ku geyn doonaa maxaa la yiraahdaa gallery-ga markuu ku geeyo waxaad soo dalban doontaa sawirkii, kadibna waad save garaysan doontaa. waa kaas hadda waxaan rajeynaa inaad wax badan ka fahanteen. aniga GB WhatsApp-ka aan isticmaalo, WhatsApp-yada kale wuu ka duwan yahay, waa WhatsApp cusub. haddii aad u baahan tihiin waxaan idin soo dhigi doonaa maxaa la yiraahdaa qaybta oo description-ka linkiga. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii muuqaalkan ku cajabiyo like saar, sidoo kale hanaga iloobin subscribe-ka. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.